warheeda xaaji xageebaad subaxidan u degdegaysaa walaalay waan daahaye markaan imaadaan ku waramaya waa maxay shaqada sidaan oo dhan kuugu muhiimsan oo halligaad ugu libisto subax walba aa u baxdaa waa wax mustaqbalka siyaasadeyda kan caruurteeda iyo mustaqbalka dalkayga quseeya hay balbaxe mustaqbalkeena iyo mugdi gelina ord warheede warbal fiiriya fursad uu ku xira armaajadii hataa uu waayay iyadoo ballaqan uu ka tegoyaa alla hooyo maxaa iskula hadlaysa adiga saake hooy macaan anaaba neerfa igu kacsan yahay taagnaan wax ma kugu sheegi karee halkaa kasoo wareegsoo sariirta soo fariiso alla balna keenta hooyaday waxaa ku dhac ma aqaana saake alla madaxa hooy macaan beryahan odagii aabbaha ahay xaalkiisa waa bixin la-ahay welina waaba ka shakisanahayba hooyo hee shaki sidee ah hooy macaan subax kastaba sii orod iyo kobagashi ayuu ku jiraa wuxuu walaaqayna ma aqaan hooyo Hee. war aan ku siiyo Haye. anaa aabba la sheekaystay Kow. wuxuu ku jiraa shaqo weyn oo noo wada dan ah waaba yaabe shaqo sidee ah oo aabbahaa ma ganacsadoo isu bedelay hooyo Hee. baryahan waxaa socda howlaha dib u eegista dastuurka marka aabe waxaa lagu daray aqoon-yahanada wada howlaha dib u eegista dastuurka waa yaab dib u eegis dastuur maxaa naga galay maxaase naga quseeya ma shaqo kale u waayay bismillaahi hooyo maxaa kugu dhacay soo ma ogid in dastuurku saameeyo nolosheena iyo ta muwaadin kasta oo soomaali ah sug bal sug sideebuu dastuurku u saameeyaa noloshayda hooyooy hee isbuucii lasoo dhaafay waxaa jaamacadda khudbad nooga jeediyey guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka wuxuuna na fahansiiyey muhiimadda dastuurka u leeyahay qof kasta iyo qaranka oo muxuu yidhi guddoomiyuhu wuxuu yidhi dastuurka waxaa ku cad waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinka sidoo kale dastuurka wuxuu ilaaliyaa sharafta iyo karaamada muwaadinka hooyooy waxaa kale uu dhahay annaga iyo madaxweynuhu waan u simanahay dastuurka oo ma sidaasuu dastuurku u wanaagsan yahay yahooy ma sidaasoo dhan oo nooga warqabaa hooyo weliba waxaana la soo siiyey buug hoo akhriso hooy sahraay haddaba waa inaan aabbaha ku caawinaa kuna taageernaa shaqadan maadaama la yidhi qof kasta ayuu dastuurku saameeyaa waa inaan anigiiyo adigaba abaabulnaa hooyooyinka iyo dhallinyaradaba si aan hawshaas muhiimkaa lafdhabar ugu noqono haddaba waayahay inakeen hooyo macaan